يعني magaca loo bixiyo aad ka garan karto oo umaleynaa inaan isdul taagi doono loo laabto yani wixii ka horeeyay 1967 isla markaasna lagu xalaaleynayo dhulkii Israa'iil ay hore u qabsatay 1967 markii horeba ku sheegay ajandaha Mareykanku markii horeba wuxuu ahaa inuu Carabta kala jabiyo u bixiyay laaluushkii siyaasadeed ama laaluushkii dhaqaale ee Mareykanka ee Carabta waxa la sheegaa inay ku bedelatay yani cunaqabatayntii dhaqaale ee saarneed عديفض يعني أن لوجه هرتجين وباهن يعني إن لدرسه إن لوجه جوابه وما باهنا مركا وحلو باهن ضدك سومالي ذا أجر هندك سومالي ذا علوم ذا كلته إني أكلالير أو قل كحران أو برج ده كحران أو قزك الأمالة ضدك قزبها بيسي أو مالير كحران ويا سيد واحد سامرك إني إسبلاريسو صابت إسبلاريس سكلامها و survival mode يكون جرت حالة يعني إثبات بادين heshiiskan la yiri Abraham Accord aan ku bilownay wuxuu yahay heshiiskan runtii sida aad ka warqabtaba ama aad hadda sheegtaba Abraham Accord waa heshiis dawladda Mareykanku ay gadaal ka riixday heshiis caalami ah sida ay u dhigtay isla markaas waa heshiis yani magaca loo bixiyo aad ka garan karto oo umaleynaa inaan isdul taagi doono sababta loo doortay magacaas Abraham Accord laakiin ujeedada ugu weyn heshiiskaas oo Mareykanku uu kala waxa waaye يعني إن لو نسقو هشيسكي هراء عربتا لديه جري عرب بيس إنيشيتيف أو عربت مرور بالبيكودو دي جرتي هدي إسرائيل راجونا يوكلته إن لو الله بتح يعني وحي كوري كوني سغال بقول لحدني تضودي ماشي إسرائيل أي جوكت إنه كل عبطه دول كان جولان هايتس كبحضه ديتو يعني إيش وده هذا اللي قاله سي مركا تاس لو جبيو Mareykanka gaar ahaan Donald Trump waxa uu soo hindisay barnaamijkan Abraham Accord kaasoo sida aan ku sheegay lagu nasaqaayo doodii hore ee Carabta ee Israa'iil ku aadan isla markaasna lagu xalaaleynayo dhulkii Israa'iil ay hore u qabsatay 1967 marka ujeedada ugu weyn oo laga lahaana kulliba gudaha u gali doona waa in lagu caadiyeeyo waxa la yiraahdo normalizationka ama lagu caadiyeeyo xiriirka wadamada Carabta كوفر كاسلسية لكن وضمد إسلام كواي إيو إسرائيل. إلا هذا وحا أقبل دور دولدوت والسودان إمارات بحرين يكو كلي كميديهين لا يكون إيو لباتن كان واحلقي مريكان كإيو هشيس كان حرق لغا جري ما هي كلها تاي صوبت دولدها سيوا أقبلين هشيس كان علاقات كيهود وسيدا أن مركي هربا كو شاقي أجندها مريكان كو مركي هربا وحوها inuu Carabta kala jabiyo aragtida la abuuro aragtida sidee loo engage gareynaya Israa'iil ay ku badbaadi kartaa Carabtuna ku badbaadi kartaa ajandahaas weyn oo Mareykanka ayaa waxa qayb ka ah marka in loo helo foolaad heshiiskan dhaqaajiya amba mashiin dhaqaajiya dawladda Imaaraadka Carabta oo aad ogtahay inay tahay dawlad markii sida caadiga loo hadlo flexible ah oo dhanka Carabtana aan jirin dhanka reer galbeedka aan jirin dhanka Afrika aan jirin Asia aan jirin oo hadaba adduunku uu ku wareersan yahay hab dhaqankeeda dawladeed ayaa marka qaadatay ofarkii koowaad amba muxuu ahaa waxaan u bixiyay laaluushkii siyaasadeed amba laaluushkii dhaqaale ee Mareykanka ee Carabta waxay ku bedelatay markaas heshiiskaas Abraham Accord dhaqaale fara badan gaar ahaan dhanka militariga in laga fangareeyo iyo wax kale oo badan oo Mareykanka ay bedelatay marka Imaaraadka markii hore ahaa albaabkii koowaad ee heshiiskan waxa ku xigsatay Bahrain oo aad ogtahay ayadana ilaa hadda lama hayo Bahrain waxa rasmi ay ku bedelatay laakiin sida suuqa ku jirta bariga dhexe oo kale oo dadka wax falanqeeya sheegayaan kama duwana waxa ay ku bedelatay Imaaraadka dhaqaale ahaan tusaalahan waxa marka hadana ku xigtay Suudaan ku xigtay afwan Morocco ku xigtay Morocco mushkilada dhexdeeda ka jiray ay isaga xalinaysay يعني barnaamijkaas inay aqbasho Suudaan hadana ku soo xigtay Suudaan waxa la sheegaa inay ku bedelatay yani cunaqabatayntii dhaqaale ee saarneed inay Mareykan oo qafiifiyo amba uu ka qaadaba totally marka sidaas marka ay dawladahaas afarta ah markii horeba heshiiskaas ku aqbaleen taas oo runtii fursad siisay in heshiiskaasi uu helo meel uu ku dhaqaaqo ama cid dhaqaajis maxaa khatar ah oo ku hoos jira anaga hadda wuxuu aad ugu soo caan baxay magaca
kiiskan somalilan iyo israel waa aragtay dadka caadiga ah waa la hadalhayaa waxaa la dhihi karaa toddobaadkii ugu hadalhaynta badnaa erebixinta abraham accord ee bulshada soomaaliyeed inkastoo lagu jahwareersanaa laga yaabo barnaamijkan kadib in macluumaad fara badan laga heli karo maxaa khatar ku hoos jira khataraha ku hareeraysan magacan iyo fahamkiisa iyo sida dadka Soomaalida ama dadka kale shucuubta kale Afrikaanka ay arki karaan muslimiinta ah runtii sidaan ku sheegay awayso waa wax u baahan runtii in cilmi baaris badan lagu sameeyo dadka cadiifad yani aan looga hortagin u baahan yani in la darso u baahan maxay nimankaanu inta magacaagi qaateen qurxoona ay magacay heshiis ugu bixiyeen oo waliba ay u bixiyeen musaalaxadii ibraahimiyiinta ama heshiisyadii ibraahimiyiinta day fiiri saddex wiil oo ibraahimiyiin ah oo heshiinaya ka dhigan sidaas darteed qof kasta marka wax looga baahan yahay inuu muxuu ahaa ka taxadaro si taxadar loo fiiriyo si cilmiyana u fiiriyo uma baahna marka in looga falceliyo marka rood magacaas oo kale ama heshiisyada noocaas yani si emotional ah si yani qiiro ah si cadiifad ah si macnaha laablakac ah in looga jawaabo uma baahna marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Soomaalida culimada kale inay aad yani arintaas ay dadka bulshada ugu fasiraan in magacii qurxoona inta la xaday heshiisyo lagu dul sameeyo hadana looga adeegto dunida muslimka ayadoo loo tusaayo markaas nimanka Israel inay niman waxyaabaha kale jira waxa kamid ah awayso ciladaha heshiiskan uu leeyahay iyo dadka naqdiya waa ka hadli doona dabcan sababtay u naqdinayaan doodaha ugu badan suuq yaala oo Mareykanka waliba gaar ahaan yaala waxa waaye heshiiskan waa heshiis lagu duudsiinayo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta isla markaasna lagu cimaamadayo intii luqadda ciyaalka xaafadda aan ku hadalno yuhuud simbali ma la baciidsanayo ma la qariibsanayo lala yaabi maayo in Soomaaliland loogu bedelo wixii Imaaraadka loogu bedelay Abraham Accord Israel maxay ku bedelanaysaa ayada Israel way isbalaarinaysaa Israel fiiri Israel waxay ku jirtaa ciriiri ku jirtaa yani kuleel yar oo qol ku xiran oo bariga dhexe ku xiran oo Gaza ka dhamaala dadkii Gaza baabiisay oo meel yar ku xiran waayo sidana ogow Israel waxay ku jirtaa cadaabi ku jirtaa hadda sida ay u nooshahay marka fiiriso iyo juqraafi ahaan markaad fiiriso waxa ku hareeraysan duruufaha ku hareeraysan marka fiiriso waa wadan yar oo ciriiri ku jira oo runtii cadaab ku jira oo dhinac yani Lebanon uga dhigan tahay dhinac Syria uga dhigan tahay way rafanaysaa marka way rafanaysaa way isbalaarinaysaa waxay sameynaysaa wax walba ay awood inay dagaalka soo fogeyso dagaalka Gaza ka socda inay soo fogeyso oo banaanka keento oo geeska Afrika keento oo Soomaaliya keento oo Ethiopia keento oo Yemen keento oo Liibiya geyso oo Iran geyso yani absolutely marka waxay doonaysaa marka inay isbalaariso sababta isku balaarinaysa si kala ma waa survival mode ay ku jirtaa xaalad yani isbadbaadin ah ayay ku jirtaa ceeb badan ka soo raacday wixii Gaza ka sameysay oo dhibaato badan ka soo gaartay sumcad ahaan runtii aaday maanta maamulka Israel oo adduunka ugu horceebaysan yahay oo aad loo karaahsanayo marka nimankan way rafanayaan